madaxweynaha khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oo adduunka laga maqlin caalam islaam annagana nagu noqotay surprise ma garatay yaab maya farxad iyo surprise wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay hay wacdaaba dambeyn sheego waan ag taagnaa wuxuu yiri maanta haweenkii buu amaanay wuxuu yiri waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkii buu kondaam gareeyay wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraahdo nus ma jirto ma garatay wala rubac wala tumun ma jirto ragii dumarka waa simanyi maxamed siyaad barre kuma u ekaysanin inta annagana farxad baan la dilaaci rabnaa mashaarad laakiin wuxuu galay bad kale oo annagana qusayn wuxuu yiri bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa 1975 intaanan rasuulkeena maxaa sallallahu alayhi wasallam imaan gabdhaha waa la aasi jiray carabta quraysh quraankii baa yimid oo ma hadda ka gaadhay waa laga mamnuucay ayad baa ku soo degatay intuu sheegayay okay bay ahayd wuxuu yiri muxuu ahay ayad walba events ka markaa imaanay ayaa bedelaysa virtually quraanka boqolkiiba cotton waa isbedelay buu yiri ma garat haddana waxaan maraynaa uu yiri 21st century qarnigii 12 ha 1975 baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin wow garoonkii dhan baa isqabsaday ma garat aniga waxaan ku dhawaaday asaga dhan intaan qabsado adduunka shaka buuxiyo mana garanaynin anaga sharciga qoyska xagga baabka iyo islaamka ama diinta weegi ku xiga banaan bax weyn baan sameynay qamiistan banaan baxnay jimcaheedii oo masaajidii xamar la isugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday waxaa qabsaday dhalinyar masaajidii bay qabsadeen waxay tarjumeen khudbadii madaxweynaha oo sideedii aan waxba lagu darin waxaa meesha maartay ka dhacday marka dood diineed oo madaxweyne muslim oo islaan oo ulil amri islaan ayaa wuxuu yiri ragay dumarka waa siman yihiin ilaahina nama simin khudbadan madaxweynaha tiriyo halkii baa maartay waxaa ka kacay buuq maalinta maxamed siyaad ceel jaalow jiray markiiba taar baa loo diray waa la ogeysiiyey magaaladii waa laga qabsaday magaaladii waa laga qabsaday amar baa la bixi bulsi mataar inay masaajidada gasho oo mikrofoonada demiso oo dadkana dareeriso oo wixii khudbadeynayna la soo xiro sidaaba waxaa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxaa la geeyay maxkamadda waxaan kaa kale iloobay 1971 kacaanka kan wuxuu ka soo guursaday Suudaan sharciyo la dhigi jiray 26 article qofkii banaan baxa waa dil qofkii hebel waa dil wax alaale wixii subversive oo dawladda ka soo horjeedo waa dil article 54 waa tay maaragtay waa tay ragii golaha sare dhexdooda lagu apply gareeyo Allah u naxariisto salaad gabeeri caynaashay dal ay maaragtay ku dhacday fallaadha sharcigaas oo ahaa marka sharciga wadanka yaalo dawladda sharciga bay u tiigsatay wadaadadii waa dil baa lagu xukumay mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururradii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahay culimadii ugu waaweynaa hatta Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual ani xasan afshir waa ag taagana wuxuu yiri been baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay
ee aan dilka ku xukumay waa kuwee war culumadii dalka xukumtay waa kuwaan hortayda safan sheekh hebelow istaag sheekh hebelow istaag sheekh hebelow istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dilay waa war dhalinyaro sakhraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda geliyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta maan aqoon laakiin hal nin oo wadaadoo yiraa waa beenta hal nin wadaadoo yiraahdo waa qalad gidigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shacabka Soomaaliya ma garat marka lobin baa bilaabmay wada hadal waa loo tagay saad ogtahayne dawladda maartay Maxamed Siyaad golihii sare wuxuu siiyay full authority amnesty-ga inuu leeyahay inuu maartay waxyaabo qaar kood asaga power u leeyahay marka waxay ku magacaabeen full power oo in ayaga waxba ka qaban karin aniga personal waa u tago xarajaal Siyaad oo sharci baan wadnaa hanooga qasin dhiig iska sii daa ama xukun culimada inaga haa isla markii jaraa'idada adduunka waxa lagu soo qoray the bloody sexual equality in Somalia sinaantii dhiiga dhagta loo daray marka waxaa yiri arrimahan san wadana United Nations baa wada jaal madaxweyne inaga daa wuxuu yiri ma idinkii dumar ahaa ragga idin la simay aan idinkaga heliye ragga ayaa sidaa ila hadlay wallahi waxna ila heliye ma laho wadaadada waa kuwa guryaha quraanka iyo cuntada siin jirteen adeen nimankaana wadkoodii ayaa meesha galay dilkii baa lagu xukumay 3 qamiistan banaan baxnay iyo qamiistii dambe iyo qamiistii ayaga jimceedii la xiray oo la xukumay adiga 26kii January 1957 waa la toogtay habeenkii marka uu biriyo kale la toogana qof walba warid buu yahay subaxii salaadii 6 baan gurigeyga ka baxay waxaan aaday jeelka General Ismaaciil Axmed Ismaaciil xaaskiisa ila socotay waxaan kaali iigay xafiiskiisaan fariisanay ducaalo waxaan iri adeero balka waran nimankii saano madaxa u luxaa asaga wuu yaaban yahay barkay inta uu asluubta ay dad un buu tiirka geynay wuxuu yiri noloshayda wali ma aan arag buu yiri 10 dhalinyaro ya ee saakin la toogtay buu yiri dad lamid ay waliga imaan arag maxaa dhacay adeer wuxuu horta waa diideen wixii la isku durdurji habeenkii oo dhan quraan bay akhrinayeen nin walba asagoo degan waana dhalinyaro ma ay weyneen 30 xataa ma ay gaarin nin walba asoo degan buu quraankiisa akhrisanay dardaaran ayay wada qoreen dardaarankii buu soo saaray ونو أخرناي هبل يهبل وحو يري إن الله مع الصابرين متكل وحو يري حاسكي يقف مهر كذي وإنت متكل أنا وحو يري الذين يقاتلون في سبيل الله إلهي درتي سشهداء لو دلو يعني وشهاد بوها إلهي درتي سلو دلو آية القرآن الوقف صديها لو دلو مكته الذين يقاتلون في سبيل الله وابا هدان قرانا أنا to be honest أنت مركو وذي وبا مقالدي وحكير الدوق وانا مولي قد لما قال لابد يارو لابد أن يرضوا وضعان أو ميليتريا يا مركي دولايين أي كلا اللي حنايين يا لابد يدبوا الدنبا يسكون دفتين دفاشادي هورت مقالدو الدنبا قريرتي قودي كدع ذي إن أنه وحو كدع أي حافتي وابريو تقانوعان 15 guryo la hurdo ayay mareen inanka kalena wasaaradda gaashaandhigga agteedu ku dhacay ayuu ku dhacay kaaga daran mariyay aan kula xasuustaa aan ku sii xasuusiyay xaafadda ay ku dhacday maalintii la dilay dadka waa loo daawasho tagay Soomaali ana kamid ahay waxa tagay goobta Ismaaciil wuu istaagay anaga dhan waa wada istaagnay askartii wacay maxaa dhacay waxa la yiri diyaarada dhacay halkii baan gaari ka qaadanay ma kaaga sheekeen karo scenario meesha yaalay ma ba kaaga sheekeen karo dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garanaa Ibrahim Dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa aroortii horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo roob yar oo tiixtiix ayaa daay arintii marka waxa lagu fasiray jawaabtii ugu horeysay Ilaahiga Raxmaanka inay dhacday
waxaan kuu sheegaa ducaalow markaa Ismaaciil Axmed Ismaaciil markii aad u tagteen intii aan markii aad ololaha ka wadeen inaan la dilin cid walba waxay isku dayday anaga urur haweenahaan ugu tagnay in laga badbaadiyo waa la isugu tagay waalidka diiday waa la diiday jaamacadda carabtu way soo gashay dadka carabtu way soo galeen malaha waa laga diiday waa la diiday maxaa u sabab ahaba yaa markaa la leeyahay waxa uu u diiday ama cidda u maqli waayo diin dhageysan waay waxaa sabab u aheeday mainly sidee baa layga hor yimaadaa sidee baa dowladayda yani ilaa isagaa ahaa imaamkii dhammaan sidee layga hor yimaadaa haddina way jirta ducaalow waqtigana waa jiray laakiin waxaan kuu sheegayaa intaa dhacaysay culimmadii Soomaaliyeed ee aqoonta lahaa shicibkii Soomaaliya garanayay waxaan cidna ma hadal alla ilaahay waxaan xusuustaa hooyadii Allah u naxariistaa waxay tiraa na ilaahay nama simin naagaha fadhiiso ilaahay nama simin maxaad ku hadlaysaa hooyo na ilaahay nama simin hooyo waxaan ka har arrintii sidii bay ku dhacday ragii waa la togtay waxaa nagu dhacay embarrassment shirkii New York markaan tagnay oo la yiri dawladda Soomaaliya human right ka haysato waxaan bilaabay aniga personal inaan maaragtay isdaafacno annaga ururkeena haweenka shaqo kuma laha ragaasna waxay ka hortageen 26 article adiga ceenka kamid baan ahayn wixii dhacay mas'uuliyadeeda ummadda Soomaaliya dhan baa mas'uulka ah waxaa ka dhashay horta aniga Maryan ahaan 2 bil kama dambeeyeen wadaadadii shaqadii weynadan haay somehow adiga ama mucaaradnimo haata ama iska hor imaad dawladda oo Maxamed Siyaad ilaa anaga isagaana xukumayay BRO adigu somehow ilaahay maartay waa iska hor imaanay maadaama dawladna ku jiray waa la iga xishooday 4 darbiyo madaxweyne ku xigeenka adigu gurigayga baan ku laabtay adduunka cid aanan sanction nagu sameeyay caalamka maxaa lahaa islaan ma jirin sharcigii qoyskana oo loo dhintay waa hirgeli waay magacyo badan loo yeelay cali xiliin baa loo yeelay dumar baa maxkamadaha la geeyay adigu ilaahay qudradiisa sharcigii meesha waa ka dhaqaaqi waay maalinta caradii rabbi sidaan aniga hadda taariikhda yani u soo arkay caradii ilaahay ee kaga dhacday Soomaaliya ee qof islaan oo Soomaaliyeed daafici waay ayaa dhacday ducaalow maxaa kamid ah markiiba horta waxaa bilowday 1975 horta waxaa la ruqsay wax alaal wixii DG sheegto iyo safiiro oo administrationka civil service ka koorkiisa ah intii ugu qiimaha badneed oo ugu cilmi badneed 5 agaasimayaal guud iyo mareeyaal yaa hal maalin laga taqalusay korneeladii waaweynada wadanka ruushka 1963 markay Soomaaliya ka carootay OAU foundationkeedii Ethiopia ayaa Soomaaliya galbeed leh oga caraatay armamentki aan galnay ay Soviet Union sponsor noo aheeday ayaa korneeladii iyo askartii la soo tababaray ayagana waa ruqsay oo Afrika oo dhan aan ugu quwad weyneen ayagana waa laga taqalusay waxa loo diray meel la foof la yiraahdo iyo tacliin iyo kacan diidnimo ka soo maartay brainwash halkaas loo diray halkaas ka bilaabatay muddo dabadeed waxa dhacay xisbigii hanti wadaaga la sameeyay markii dambana waxa la istusaalay dawladda Soomaaliyeed in Ethiopia markuu Mengistu Haile Mariam ka dhacay maxay ahaday Haile Salaas markuu dhacay oo inay yaro military qabsaday oo crisis galay dawladda Ethiopia ay gashay crisis inaan ka faa'iideysano janska waatan la isku qaaday ruushkana raali kama ahayn adigu waatan lagu baaba'ay wax ka soo harayna way yaraayeen aqoontii militariga raggii waday way ku dhamaadeen soo noqodkiina waxaa dhalatay diidmaa dhalatay Hargeysa waxaa lagu toogtay 6 maartay sarkaal diidmaa bilaabatay raggii kaloo xamar tagay waxay isku dayeen inqalaab diidmaa bilaabatay ayagana fagaara xamar baa lagu toogtay maxaad u malaysay 10 wadaad ya marka fidnadii soo bilaabantay 75 halkaas ay ka wadatay waa sidaan aniga aan interpretation ay igu la muuqato marka
سقالية تضوات كود مرسا يوم مركي انقلاب كي حتى يسكو دي انقلاب كي لا اسكو دي 17 ويلو ميليتري ها جيدka la saaray jabhadii soo dafbaab maartay abuurantay baraakadihii iyo bari iyo Puntland population koodii baa maartay la baabashay adigu disaster oo mid walba mid kale ka dambeeyo waxa ku xigtay marka haddana silsiladii Somaliland Soomaali waqooyi in iyadana maartay dawladii daafici lahayd عدو كده فعلت إني مقالة شعب كي معرتي أي كوجرات